trade life aan sameyn doonaa waa suuqa New York khamiis 3 July waana lacagta caadiyan aan ku trade gareeyay gold after news waaye sida arkaysaan NFP waa soo baxay and then wuxuu ku soo baxay numberka sareeya intii la expect gareynay sida adiga indhaha ka arkaysid marka insha Allah si life out trade gareyn doonaa anoo ku trade garanay marka strategy-ga ICI sidaan arkayno for the high time frames daily-gaba sida arkaysid suuqa wuxuu joogaa meel key level fiican oo daily low-ga la qaaday waxa weeye and then gap fiican buu suuqa haystaa waa in markaas aynu helnaa bullish fiican insha Allah all the way week fiican ugu qaatay sida arkaysid 4 hour-ka waa la mid isagana gap buu haystaa waxa weeye strong rejection buu hadda sameynaya all the way sida arkaysid 1 hour-ka 30 minute-ka kuma dheeraanayna inta marka 5 minute-ka ICI fiican ku haystaa hadda sida arkaysid ICI so marka la baas gareynayo candle-kaasi automatically trade-ka hadda waa farid waana ku jira insha Allah dhanka MT5-kana waxaan saari doonaa insha Allah iminka shashada saari doonaa so wax ku baagareyna suuqa 0.04 insha Allah so you can see I think you can see okay so automatically trade-kan ku jirnaa SL-kayga insha Allah muxuu noqon doonaa candle-kan dibadiisa this candle oo noqon doonaa insha Allah all the way 83 pip caadi maan suuqa so 100 pip insha Allah target gareyn doonaa isku badinayo 1.3 gaas camal ka raadina insha Allah yeah so let's go TB1-kayga insha Allah wuxuu noqon doonaa half-ka waana meesha at the same time ku break fan gareyn doona trade-ka so guys let's go insha Allah sala aragna trade-kani iyo marka waxa uu ku dhamaado biinillah koonkan hadda ku trade garanaya koona challenge ku sameynay buu ahaa oo mataqaana $100 ku shubay intii la socotay marka that means waxa la isgareynaya hadda 0.04 ugu jira sorry 0.04 ugu jira suuqa so gold iyo 3 pip markuu yahay asalkayga ana ugu jiro 0.04 that means waxa weeye $33 lose gareynaya trade-kani si lamid waxa ka raadinaya $66 ma fahmaysa so I think ina some risk qaadanayo but we will see inshallah khair bay ku dhamaanay so guys as you can see clearly trade hit his TB1 so let me set to break even and close partially 0.02 I will close 0.02 okay and set to break even so hadda waa protect gareeyay insha Allah inkastoo xoogaa risk uu yahay amooda suuqa volume-kiisa inuu soo yaraanayo all the way dhaqaaqan xaggan buu kasoo bilowday balse waa arki doonaa insha Allah inaa manage gareyn karo haddii aan waayo wax confirmation insha Allah waa manage gareyn doonaa haddii kale waxaanu sugi doonaa marka oo dhaqaaq fiican inoo sameeyana full target-keena so alxamdulillah sida arkaysaan break even baa laga saari rabay aad baa loogu dhawaaday entry point-gayga and then all the way waxa weeye suuqu si qurux badan buu runtii u soo dhaqaaqay iminka sida arkaysaan 60 pip buu ii wadaa oo profit so still inshallah I will hold so guys candle-kan saan hadda noogu xirmay waana bullish fiican so I think new candle isagana inuu week qaato kadibna uu baxo this area TB2 bay tahay inshallah marka wax isku day inaan sameeyo inaan faa'iido qayb ka mid ah still aan si secure gareysto 0.01 kale so only hadda suuqa maxaa ugu jira 0.1 fahanti marka candle-kan wixii uu sameeyo hadduu break even iga saarana I will wait haddii inshallah uu full TBC yana I will see so candle-kan waxay u badan tahay inuu waxa weeye sell ku xirayo marka waa ka baxaya trade-ka gaanba xaggan aan ku manage gareeyay so you see 296 that's enough for me